weerarkani loo geystay ganacsatadani Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay tuulada Karaafotiin oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Cape Town ee wadankani South Africa. laba gaari oo ay lahaayeen muwaadiniintani Soomaaliyeed ayaa dab lagu qabadsiiyay afaafka hore ee goobtooda ganacsi. gubista gawaaridani ayaa ka dambeysay kadib markii ay afgaareen ganacsatadani Soomaalida ah iyo dhalinyaro South African oo doonayay inay boobaan goobta ganacsatadani Soomaaliyeed. Muuse Muude Afrax oo kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ayaa maanta saxaafadda kula hadlay goobta uu falkani ka dhacay. waxaa dhacday dhibaato yar in canug yar uu sameeyey markuu sameeyeyna kabacdi arrintan lama filaanka ay dhacday halkaas ka dhacda u jeediin waana wax hadda aad looga xun yahay oo aad looga xumaaday dhammaan madaxda jaaliyadaha ama madaxda dhammaan warfaafinta ama qolo kasta Soomaaliya ama shakhsi kasta Soomaaliya oo aad ugu carooday waana arrin ay sameeyeen dadka ku dhaqan deegaankan waxaan ugu tacsiideynaa dhammaan haddaynu nahay madaxdii deegaankan deganeed dadka ay dhibaatadan ku dhacday ama labadan gaari dalkiisiin gubatay oo dadkan South Africaanka ay gubeen dhammaan ugu tacsiideynaa ummadda Soomaaliyeed waxaanu leenahay waxay iska sabraano haddii ilaahay yidhaah waa laga bixi doonaa ilaahay idinkiisa. maxaa kale oo khasaare ayaa meesha ka dhacay? dhimasho ma jirta dhaawac ayaa jira iyo shacabkii xoogaa meeshii ka carareen sad arkaysiin dukaankii waa arkaysiin waa laga cararay wuuna baaboosaanu ku baabaa dukaankii gawaaridina waad u jeedaan dadkii xaafadina kuma soo noqon karaan ilaa uun waqti kale la gaaro ama la sameeyo dib u dejin marka waad u jeediin hadday dhibaatada ummadda Soomaalida haysata ma garata waa garta marka alaabtii dukaanka tiile iyo waxma balaqma meesha ka dhacay waa la beelqaystay alaabtiina waa la dhacay haddii hantidii banaanka kilaab la gubay u jeediin oo gawaarida la gubay oo gawaarida hataa alaabaa saareed oo lacagaa saareed oo dukaamanka u shaqaynayeen dukaankiina waa la dhacay oo waa la beelqaystay hadda kuwii kaloo deegaanka ku yiilay ayaaba cabsi ku jira oo sad arkaysiin booliiska naftigiisa wuxuu nagu yidhi oo annaga naftkeenna soo wacay jaaliyadda soo wacay oo yidhaahda war annagu ma damaanad qaadi karno ammaanka Soomaalida kan degan marka waxaan ka codsanaynaa dadkii madaxdii meeshaan inaad Soomaalidii meeshaan ka rartaan oo adii ilaa xalka laga helayo aad samaysaan gurmad oo ummadda Soomaalida ama ay soo gubaan booliiska naftigiisa nagu yidhi oo ninkii meesha haystaa nagu yidhi oo xataa aniga khaasatan ila kulmay oo yidhi waxaan ka codsanaynaa dadka inaa meesha ka badbaadiso ma garata waa garta marka maxaa sababay dilka yarka South Africaanka waxaa sababay dhammaan dadkan waa taqaanaa waa tuugo badan ayay samaysteen si dukaankan lagu dhaco ilmo yaray soo direen ilmo yaraa la carray alaabtii qayb kamida la carray haddii la maaga halala hadlo banaanka loo soo baxana raggaa diyaarsanay saas ayaana dhibka ku dhacday oo dukaamankan lagu boobay gawaaridan lagu gubay. dhinaca kale ganacsada Soomaaliya ayaa isna lagu toogtay tuulada Kaliija oo Soomaalidu u taqaano madasha geerida. Allah u naxariistay Abuukar Cali Hilowle ayaa waxaa toogtay burcad South African ah kuwa oo toogashadiisa kadib dhac u geystay dukaanka marxuumkani geeriyooday. marxuumka ayaa lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee ku yaala magaalada Cape Town. ugu dambeyntii falalkani waxyeelada loogu geystay muwaadiniintani Soomaaliyeed ayaa habeennimadii xalay mar qura waxa ay ka kala dhaceen tuulooyinka Kaliija iyo Karaafotiin. Ismaaciil Cabdulle Sibriye TV-ga caalamiga Universal Cape Town.